السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأتكم أتصنتها داوشة فيديوغن فضلا هداد يوتيوب كان نقل سعود سبسكرايب صار هداد فيسبوك نقل سعودنا فولو ده هدي تيك توك نقل سعودنا فولو ده يليك ده نقله المامن waxaan jeclahay inaan hadalkayga ku bilaabo sheeko yar oo kaftan ah. nin aad maskiin u ah baa hadda koor wuxuu ku guuleystay baqtiyaan nasiib, wuxuu helay lacag aad iyo aad u fara badan. marka qoladii baqtiyaan nasiibka bixinaysay ayaa waxay isdhaheen haddii aad ninka lacagtan aadka u fara badan aad u sheegtaan waxaa laga yaabaa inuu waasho. marka waxaynu samayn doonaa insha Allah, waxaynu ugu sheegaynaa si tartiib ah lacagtani gabal baanu ugu sheegi doonaa. waxay u waceen saaxiibkiisa, waxay ku dhaheen saaxiibka wuxuu ku guuleystay lacag aad iyo aad u fara badan. marka waxaynu rabnaa haddii lacagta aanu u wada sheegno inuu waasho ayaanu ka baqaynaa. waxaynu rabnaa marka inaan si gabal ugu sheegno. marka adigaa si tartiib ugu sheegi doona. gabal yar oo ka mid ah lacagtii beenikii saaxiibkiis ahaa ee u sheegeen nimankii. saaxiibkiis uu soo baxay, wuxuu u imaaday kii lacagta ku guuleystay faqiirka ahaa. wuxuu ku dhahay niyow maalindhood baqtiyaan nasiibka aad gelaysay ka waran haddii aad lacag intaa la eg aad ku guuleysan lahayd. kii saaxiibkiis faqiirka ahaa wuu fikiray cabaaru aamusay, markaas wuxuu dhahay noo lacagta kala bar adigaan ku siin lahaa buu dhahay. kii la soo diray baa meesha ku waashay baa la dhahay. maanta walaalayaal waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo, qof walba ma mudna inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirta. qof walba walaalayaal ma mudna inuu ogaado waxa qalbigaaga ku jira. qof walba walaalayaal ma mudna inuu ogaado iftiinka kaa soo burqanaya. qof walba walaalayaal ma mudna inuu ogaado afkaarta qalbigaaga ka soo baxaysa, iftiinka qalbigaada ka soo baxayo. qof walba walaalayaal ma mudna inuu ogaado ubaxa aynu isku dayeyno in qalbiyadeena aynu ku abuurno. qof walba walaalayaal ma mudna inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirta qof walba ma mudna inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirta. markii aan ku leeyahay qof walbo, kama hadlayo dadka ay salaanta idinka dhaxayso, kama hadlayo dadka aad kor iska taqaanaan, dadka aadan aqoon duruqsan isku lahayn. waxaan ka hadlayaa kuwa xindaabkaaga hoose ku jira. waxaan ka hadlayaa saaxiibadaada, waxaan ka hadlayaa qaraabadaada. qof walba ma mudna inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirta. imise qof ayaa maanta walaalayaal riyadoodii ay ku burburtay keliya hal eray oo ka soo yeeray qofkii dadka ugu dhowaa. imise qof ayaa maanta riyadoodii, afkaartii ay damacsanaayeen, qalbiyadoodii wixii ku weynaa, ahmiyadda ay lahaayeen, waxbarashadii ay rabeen inay bilaabaan, buuggii ay rabeen inay qoraan, horumarkii ay rabeen inay ku tillaabsadaan, oga haray keliya hal eray oo ka soo yeeray kuwii dadka ugu jeclaayeen. haddaba qof walba ma mudna inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirto. dadku isku si wax uma wada arki doonaan, saaxiibadaada isku si wax uma wada arki doonaan, qaraabadaada iyo adiga isku si wax uma wada arki doontaan. soomaalidu waxay tidhaahdaa nina si u yiri, nina si u fahmi, si u qaaday. haddaba qof walba ma mudno inuu ogaado riyada qalbigaada ku jirto. nebi yuusuf calayhi salaam habeenada ka mid ah isagoo yar baa waxa uu ku riyooday iyadoo ay u sujuudsan yihiin 11 xidigood, qoraxda iyo dayaxa. waxa uu yimid aabbihiisa, wuxuu ku dhahay aabe, xalay waxaan ku riyooday riyada noocaas ah. ereyga koowaad uu aabbihii ku dhahay wuxuu ahaa ha u sheegin riyadan walaalahaaga. maxaa yeelay si walba uu qofku kuugu dhow yahay, si walba uu qofku uu saaxiibkaaga u yahay, si walba qofku wax badan idinkaga dhexeeyaan, haddana micnaheedu ma ahan inuu noqon karo qof xamili karaya iftiinka qalbigaada ka soo baxayo. haddaba qof walba riyadaada ha u sheegin. nebi yuusuf waa uu u sheegay walaalihiisa riyadii. markii uu u sheegay riyadii walaalihiisa, tobankii isaga la dhashayba waxay u fadhiisteen siday u kala dhantaali lahaayeen riyadii nebi yuusuf. waxay u fadhiisteen siday uga hor istaagi lahaayeen horumarkiisa. waxay u fadhiisteen siday dadka uga reebi lahaayeen. ogama soo horjeedin walaalihiisa, maxaa yeelay wuxuu ahaa wiil wanaagsan, maxaa yeelay wuxuu ahaa wiil uu aabbihiis jecel yahay, maxaa yeelay waxa uu ahaa qof dadka ka mid ah ama average iska ah. maya, waxay uga soo horjeedeen waxay ahayd, waxay ogaadeen riyada qalbigiisa ku jirta. waxay ogaadeen inuu yahay mid ka duwan iyaga iyo dadkoo idil. waxay ogaadeen inuu yahay mid calaamad adduunkani uga tegi doona. markii aad isku daydo inaad horumar gaadho, markii aad isku daydo inaad ka dhex baxdo xendaabkan hoose ama aad level kale aad ku tilaabsato, markii aad isku daydo inaad heer gaadho, markii aad isku daydo inaad jaamacad gasho, markii aad isku daydo inaad wax la imaato,
inaad buug qorto, markii aad isku daydo inaad noqoto shaqaalaha ugu wanaagsan ee kambaniga, markii aad isku daydo inaad kaalinta koowaad ka gasho jaamacadda, haddaba aan kuu sii digo dadkoo idil kulama dabaaldegi doonaan. waxaad la kulmi doontaa dhaliilooyin aad u fara badan. waxaa lagu oo dhan ma baran karaysid, ma noqon karaysid, ma heli karaysid jaamacaddaasi. waxaa lagu oo dhan ma noqon karaysid hogaamiye wanaagsan. waxaa lagu oo dhan dhowr mar ayaad isku dayday xiriir, kuma guulaysan doonta adiga, maya waxaad ku dhammaysan doontaa un singalnimo. waxaa lagu oo dhan dhowr mar ayaad ganacsi isku dayday, waad ku feelgareysmatay, waad ku guuldaraysatay. nio adiga waxaad ku wanaagsan tahay shaqaalanimo un. laakiin dhaliilooyinkaas iyo kuwo ka badanba dheg jaraq ha u siinin. dadka dhaliila boqolkiiba 99 kuma keenaan xal aad dhibkaaga ku xaliso, kuma keenaan xal aad ku rumayn karto riyadaada adigoo micnaha noloshii kaleetana la tacaalaya oo la falgelaya. dadka dhaliila waa sida qof curyaan labada lugood ka go'an. qof curyaan maanta labada lugood ka go'an, ka waran haddii uu ku dhaho sidaana loo socdaa, ma ka dhegaysan lahayd sidaa u socon lahayd? qof curyaan ah oo maanta lugihiisa ay go'an yihiin, ma ka dhegaysan lahayd sidaa u socon lahayd? dabcan jawaabtu waa maya. dadka dhaliila waa sidaasoo kale, maskaxda ayay curyaan ka yihiin. riyadii uu alla ku siiyey, riyadii uu alla siiyey ayay curyaan ka yihiin. sidaas daraaddeed qof aan maanta riyadiisiiba ku nooleen ha isku dayin inuu kaa dhaadhacsiiyo, yuusan isku dayin inuu kaa dhaadhacsiiyo sidaa taada ugu noolaan lahayd. dadka dhaliila walaalayaal waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaan siday dadka kaaga reebi lahaayeen, sidaad iyaga uga mid noqon lahayd, sidaad u noqon lahayd qof aad dadka ka muuqanin, sidii aadan guul u gaari lahayn. waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayaan siday facaaga kaaga reebi lahaayeen. laakiin mid ogow, qorshe walba oo ay ku degaan wuxuu alla subxaanahu wa tacaala u isticmaali doonaa inuu riyadaada kuugu dhaweeyo. qorshe walba uu cadowgaada kuu dego wuxuu alla subxaanahu wa tacaala kuugu dhoweyn doonaa sidaad ugu rumayn lahayd riyadaada. nebi yuusuf calayhi salaam walaalihiisa waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen siday riyadiisa u burburin lahaayeen, laakiin xaqiiqatan waxay ka shaqeeyeen siday riyadiisa u rumoobi lahayd. haddii waxaa la yidhahdaa walaal nebi yuusuf walaalihiisa haddii aysan nebi yuusuf aysan ceelka ku ridi lahayn, haddaba nebi yuusuf wasiir ma noqdeen. sidaasoo kaleeto weeyaan dadku. ha ku mashquulin inaad ka dhaadhacsiiso riyadaada, ha isku dayin inay mar walbaba ay noqdaan kuwo ku fahmayo. ha raadinin ogolaanshiyahooda, ha isku dayin mar walbaba in dadka kuugu dhow ay noqdaan kuwo fahmaya riyadaada. marmarka qaar waxaa dhacda in dadka kuugu dhow ay noqdaan kuwa kugu taageerada yar. marka horey uga soco, ha ka dhaadhacsiinin riyadaada, ha ku mashquulin sidaad uga dhaadhacsiin lahayd riyadaada. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyey hal su'aal. weli ma aragtay taalo loo sameeyo dadka dhaliila? taaladu waa waxyaabaha xusuusta dadka, sida xaawataako oo kale muqdisho taalada ku taallo. xaawataako waa taalo lagu soo xasuusanayo halgankii ee xaawataako. weli ma aragtay dadka dhaliila taalo loo sameynayo? waa maya. laakiin waynu aragnay, waynu haynaa taariikhda dadkii riyadooda rumeeyey taalo loo sameeyey. haddaba tusaale wanaagsan ha kuu noqdo nebi yuusuf calayhi salaam. tusaale wanaagsan walaal ha inoo wada noqdo nebi maxamed calayhi salaam. tusaale wanaagsan ha inoo noqdaan albert einstein, dadkii caafimaadka wax ku soo kordhiyey, dadkii riyadooda rumeeyey. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.